dad shacabahoo buuqayo rag iyo dumar oo dhahaya haddii hebel xilka laga qaado unukuna furmahan ka baxayna furmaha qofkii hebel ugu jira haddaba ha ka baxo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr tobiq oo yaryar markii wax dhacaan oo ciidanka sidii aadan yabaalo kale uu noqdo oo wax dhacaan habayntu lama rabo inay jiita noqoto oo ay dib u dhacdo oo waqti lumo lama rabo waxaa la rabaa in ciidanku hadduu shabay uu is-ceshado durba rogaal celiyo hoo shaqadiisii ku laabto waxaan habqanka baabuurta shacabka iyo kuwoodii inta ka dhaxaysa ku dhooban oo ilaa hadda ka maqan hawshii hadda saakawga xalli wargaadhiyay weerareen haddaan la weeraray iyagaa wax weeraraya nimanka maxaa yeelay waa baroweysan tihiin waxaana meel walba laga soo ururiyey maleysyadan meesha weerartay marka dawladda jiitanka ha iska dhaafto go-aanka jilicsana faraha ka qaado decision may kalay rabtaa go-aan adag bay rabtaa oo la qaato waxaan maqlayay dad shacabahoo buuqayo rag iyo dumar oo dhahaya haddii hebel xilka laga qaado unukuna furmahan ka baxayna furmaha qofkii hebel ugu jira haddaba ha ka baxo waa maxaa waxaas dawladda waxay ka qaadaysaa xilli waxay u dhiibaysaa maxaa ka qoseeya akhlaaq ma ahan afna ma ahan dawladnimona ma ahan saas waxaa weeye haddaad ugu jirtay cadaawad nimanka aada u qabto ood la dirirayso degaankaaga aad ka ceshanaysana dagaalan haddii aad ugu jirtay hebel oo xil hayana dee hebel xilka waa laga qaadaya waxaa la rabaa waxaasu war ma ahan dawladdu inay dhisisin yeelato waaye iyadu go-aan leedaha waaye ciidamadii inay habayso waaye saraakiisha inay isku bedesho waaye inay dagaalkii gasho waaye taana casnimo waaye xasan shiikow waxaa la yidhi maslaxad jilicsan mayd baa hoos yaal waxaa la rabaa go-aanka inuusan ahayn mid laba ah intaa kadib waxaan rabaa inaan saaka ka hadlo social mediaha war ku jira oo aan isleeyahay waxaa iskale imaaraad iyo etoobiya u horeeya waxaa ugu horeeya cadowga soomaaliya oon rabin muxuu ahaaye soomaaliya horumarkeeda iyo horu socodkeeda shisheeye fog iyo kuwo dhow shaki kuma jiro inay ka dambeeyaan inay kuwaan social mediaha ku jira ay yihiin shaqaale inay yihiin jaajuuseen inay yihiin hadday siyaasi yihiin iyo hadday yihiin kuwo wariyaal iska dhigayaba inay gudbinayaan message kale shidaalkii 95% waxaa qaadanaya turki soomaaliyana 5 qaadanaysa ay 5 rabnaa inaan qaadano maxaa yeelay qaydaadka naga 80 markaba ku jirtay oo ay leedahay NATO ayaa guranaysa wax alla waxay rabto kalluunka wuxuu ku dhalaa meesha la yiraahdo ayuu toonuhu ku dhalaa adduunka oo dhan meeshaasoo ku dhalaa halkaasi argoosatada iyo toonahaba ka qaadanayeen iyo enerjiga cagaaran wixii la rabay qaadanayeen sidaalka naga waa la soo saarayaa dawladdan waa ku mahadsan tahay explosionka la sameeyey baalkii explorer la sameeyey iyo muxuu ahaa soo saaridda waa ku wanaagsan tahay aad bay ugu fiican tahay maqaalka qolada qortay turkiga waxa anagu aan leenahay kale leeyahay mucaarad bay leeyahay ortaqan ninkii hadda duqa magaalada ka ah Istanbul oo la xiro lagu helay dembiga reaction ka dhashay wax badan ka Cabdalla Guulkii oo dhintay oo Mareykanka joogo inqilaabka ka dambeeyay ururkiisii waa jooga qoladii hadda soo xarooto BKK waa joogtaa waxyaabo badan baa laga qoraa Turkiga adinka heshiis ma aanan gelin war uma haysaan heshiiska xasan dawladdiisa gashay dawladdan shaqaynaysa gashay ayadaa wax qabatay ayadaa wax ka muuqdaan la farmaajo wala shariif wala dika la yiraahdo dani ninna warka yeeli mayno waa la soo saarayaa adeen ninkii diiday in baaritaan laga sameeyo deegaanka uu deganaa muxuu sheegaya baaritaan in laga sameeyo marka loo diro ninkii diiday oo u shaqaynaya Ethiopia iyo wax la mid ah imaaraad mandaydu wax ku baarana ma haysto dadkii shacabka ahna in qayraadkii laga baaro Puntland waa diiday dib loo horeysa waay ka soo kale Axmed Madoobo kale maxaa la dhahayaa maxaa la weydiinayaa
dadku waa inay masiirka guud ka shaqeeyaan gudoomiye gobolaan meel ka noqonaya anigaana haysanayo waxaan rabaana dhahaya dacaayad raqiisa weeye shidaalka waa la soo saaraya galmudug baan laga soo saaraya maxaa in ka quseeya adinka waxa in ka quseeya sheega khayraadka hala qaybsado ha laga hadlo waa diideen imaada maxaa ahay kulanka waa diideen ninkii warqadda qorayo lahaa ayaana laka qaadin cunaqabataynta ninkii warqadda ka daba qorayo lahaa ayaana laka qaadin muxuu ahaaye yaana laka cafin daynta ilaahan ku dhaarshay maxaa la weydiinaya ninkaas ninka mas-uul sheeganayo le 5 bilyan oo lacagoo nala kuleeyahay yaana laka cafin yaan muxuu ahaye dayntina laka cafin yaan muxuu ahaye cunaqabatayntana laka qaadin hubka waa isku laynaysaa soomaaliya yaan la dhiibin war waxaasu wax jira maahan mana laga hadlaayo sida loo galay waaye turkiguna waa soo saarayaa shidaalka meelaha kale oo diyaadkaana waa la baarayaa berigaa loo soo jeesanayaa hadda warka jabaqdaahood ka sheegaysaan muxuu ahaa social mediaha isku xishooda oo dhaafa waa basaaseen dadkani wuxuu rabaa inuu ciidamadii turkiga oo yimid ka warbixiyo wax alla waxa aan qof bini aadamku dhageysan karin oo liidanyaa ku hadlaya ciidankaas waxay u yimaadeen waa la baaraya maxay tahay war waxaa war ma aha war waxaa war ma ahana ka xishooda bulshada Soomaaliyeed oo adinku isku xishooda nin aan qori karin fiiri war degdega waa war degdega bay qorayaan fiiri ilaahay baan kugu dhaarshay dad waa weyn waaye war maba ahan ba af Soomaali war degdega waa war degdega waa wa iyo iyo ra waaye war maaha waxaad qori laadihiin titolkii warkiinaad qori laadihiin yaad wax u sheegaysaan maxaad sheegaysaan titolkii warkiina ayaad qori laadihiin muxuu ahaye meesha wixii ku qornaa baad qori laadihiin war degdegaad qori laadihiin maxaad kaloo ummad u sheegaysaan waxaas war ma ahan waxa ka socda dawladda dhexdeedana adinka idinma qusayso shacabka yabqayana ma qusayso kuwa ka hadlayana ma qusayso dawladda heshiis gashay Soomaaliya ma la dhaca waa la dhaca maxaa Soomaaliya u ilaashanaa in la dhaca adinka ka shaqeeyay in la dhacoyso waxba helin adinka ka shaqeeyay turkiga u baahan hal la baxo hana qaato maxaa yeelay adaa googooyay oo ka dhigay muxuu ahaa xaafado adaa diiday taliskii guud adaa diiday dantii guud adaa diiday isoomaatinkii guud adaa diiday wax wada lahaashee Soomaaliya ma in Ethiopia la baxdaa rabtaa khayraadka iyo imaaraad inaad la baxdo dadkaas raadeerka dhex keentay oo turkigu ku rakibay aeroboorkaas ka fuj haddaad nin wax maqlaya tahay raadaarkaas wuxuu basaas ku yahay dhulka hadda Mareykanku garaacayo meel hadda gantaalu ku jira aan garaacashada ku lahay waxa waaye gantaalo kuma xirna wax la soo ridi maaye waa meel yuhuuddu wax ka ogaatay raadeerka fuj oo ka qaad dalka dawladda Soomaaliyana waa inay ka hadashaa muxuu ahaa arrintaas ayaa dalka wakiilka ahayd inay ka hadasho weeye dadka barankiga loo sheegayo beesha laga dhaadhiciyo ma isaaq baa Soomaaliya oo dhamo isaaq baa waxaa 4 sano waxaa la leeyahay aqoonsigu wuxuu soo marayaa meel aqalka cadiya capital hill u dhaxaysa oo soo maraya halkaas soo maraya ana ka soo gudbuu leeyahay asii sacbinaya dad buka oo jiran wara shala u dambeysay oo soo saareen state department warqadii waxay ku jirtaa halkan Soomaaliya hal midaan oo aqoonsanahay waxa Soomaaliland iska daaya jirada xanuunkana iska dhaafa danaha dadkana ha lugoynina wallahi dawlad isaaq la yiraahdo wax aqoonsanayo cad oo madow ama Faysal Hafarur yaqaaninsado ama wiilkeygii argagixiso ahaana waa noqonaya ha yiraahdo ama Ilaahay ha ka furto ama Ilaahay ha u dhawaado inaan wax aqoonsiyo jirine waxaad yeeshaan laascaano oo tashato gobol soo la yiraahdo oo goboladii 18 kamida ayaad ka hari laadahay anaga maxaa noo malaynaysaa warqaad ma ugu qoran tihiin 60kii wixii ka dambeeyay halkaas aad ku qoran tihiin ma dhaqaaqi kartaan
adinkoo wada lugeynaya inta noogu timaadaan aan xisaabtano saad ku go-aysaan dawlad ku noqonaysaan aan ka wada hadalno aanan fadhiisano muqdisho filla baydhaba aan tegaynaa waa hadlaynaa waxaad saad ku go-aysiyo waxaad rabto iyo waxa aad leedahood qaadanaysiyo cidda aad tahay aan ka hadalno soomaali iyo laan dhul iyo soomaaliya waay soomaali iyo laan 60kii baa la qoraa waxa war ma ahan wax lainka yeelayana ma ahan inta loo timaadaan nala xisaabtama Addis Ababa waa jeceshii markii la kaga yeero waa carartaan maqaqaadka hareeriga waxaad ugu ordaysaan kan miira waa la keenay halkaan imaada qalbiye buka oo weligood raysanayn oo qashina ayaa tihiin dad xun baa tihiin dad fiican oo suugaanta ka shaqeeyo oo wax alifo waxna heesana qaada oo hal abuur laha Soomaaliland ahaan jirtay dhulka waqooyi galbeed ay ahaan jireen gobolka waqooyi galbeed inkastoo dadkii ay nabad qabaan waxaan ahayn isaaqa oo waxa inkaartu ku dhacday qabiilka isaaqa ay tahay war qabiilka isaaq qabiilnimadiisu isku dilaya asaga isaaqa hadeer habar awal soo dhaaranaysa leeyahay anaga qaadayno kilkii lixaad aan noqonaynaa naag xalan arkay naag dhaaysa kilkii lixaad aan noqonaynaa wallahi san xukuumeen garxajis war waxa qabiil u tihiin qabiilka noocaas u tihiin ku soo laabta badii dhexdeeda ku jirteen oo Soomaali weyn ayada wax ku ahaydeen dadkaana beenta ka daaya inta haddaan ka gudbo dawladdu degdeg waxa u qabato dawladdu degdeg ammaanka ha uga shaqeyso ciidamadii ka baxay furimahan ah lagu celiyo hana la hawl galo duqeyntii maxaa loo joojiyay hal la duqeeyay nimanka hal la soo waxa meel ku kala haya intaasaan ku soo koobaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay ha barakeeyo Soomaaliya.